السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا دمان سو دوادا رير سومالي رويال إن maantan waxaan haynaa barnaamij aad iyo aad cajab geli doona oo anigoo ah saaxiibkiina Osama Ishaq ama Utqaran Ishaq boy in barnaamijka maanta idin hayo aan idinku soo koobi doonaa sawirro qaar ee confuse ku kaaginaya maskaxda markaad fiiriso oo halka mar ugu horeysa aad fiirinaysid aadan fahmi karin balse u baahan inaad fiiriso mar labaad ama aad si fiican u fiiriso ama si fiican inaad fiiriso iskuna day videoga inaad joojisid markaad sawirka fiirinaysid waayo sawirka waxa laga yaabaa inuu ciyo ku gudbo aadan fahmin insha Allah anna waxa isku day doonaa sawirkan ka fiirsan kadib in idin sharxo in sawirada hadda guda galeynaa aan isla fiirino sawirka koowaad sawirkan koowaad si fiican ila fiiriya macnaha qofkan dumarka wuxuu soo jeedinaysaa dadkaas isku yimaada xeebta sali ayaa u fidsan ama roog dhulka u fidsan yahay marka dhulku si fiican u yaala rooga kor uma qaadsana dhulka waa dhul xeeb ah xeebtu fidsan yahay marka shadowgan meesha yaalana waa calan suran meel ka soo sokaysa calan suran calankaas qoraxda qabatay shadowgu sameeyay waa ujeedin shadow calanka uu sameeyay waa waxaan ma ahan inay kor u kacsan tahay aan ka gudubno sawirka labaad oo gudubno marka sawirkan ila fiiriyo wow ajiib sawirkan runtii qofka fiiriyo waxa umaleynaa barto qofka bishkuleeti wado ama baaskiilka wadooyba inuu ku kor socdo derbi yar sida dadka xirfadaha qaar leh amal inay tahay oo derbi ay kor socdo loo maleeyaa derbi kuma socdo laakiin meesha waxa waaye baaskiilka waa la jiifiyay iidan way jiifatay baaskiilkii hoos gashay qofkan kalena laamiga oo jiiftay ama xaafad ama guri wuxuu rabaa aadee meesha jiifatay lugihiisa isku kor saaratay kor u soo qaaday tarmuush meesha yaalna waa la soo qabtay waa la jiifiyay asina loo saaray salka waxa loo saaray derbi dhulkan waa fahmi kartaa waa meel sadaan marka u soo socotid oo qaar san u kacayso dan ismayso oo la sas loo dhisay amal oo kor loo qaaday macnaha sawirkan qofkan wuxuu haystaa qofkan saddexaad kan koowaad baaskiilka wadaa kan labaad waxa waa meesha fadhiyaa sida qof fadhiya amal oo iska dhigay laakiin dhabar u jiifaa lugiyo kor soo qaatay qofkan saddexaadna xabadkii dhulka dhigtay meesha derbigii uu qabsaday sida qof dhacay amal oo u qabsaday aan ka gudubno sawirka saddexaad wow waa cajiib ila fiiriyo bal waxaan waa fahmi lahaa loo madax leemiya mise waa laba wow sida muuqata waa hal nin oo wato laba wata ninkan marka labada sidee lagu kala fahmaa mid wuxuu soo mariyay ninka hortiisa midaa soo mariyay meeshuu istaajiyay midna gadaaloo ka soo bixiyay dhabarkiisa dambe waxaa ka arki kartaan labada nin ninka labadiis lug dhexdooda waa ka arki kartaa dhabarka dambe kale meesha laga soo bixiyay madaxiisa saan loo soo bixiyay ayaan kala saan labo mataane waa isku eg okay sawirka saddexaad aan u gudubno cunug yar oo lagu waaweyn leh cajiib cunug yar lagu waaweyn leh macquul maahan marka si fiican ila fiiri anaa ku sharxayo waa maamo lugaheeda saaratay miiska oo qolka fadhiga yaala camal kadibna isku qarisa barkiinta meesha taal mujida qofkii saxda ku qarsan cunugan dhabta la soo saaray lugiis dhinacaas loo jeediyay waa la qariif waa fahanteen marina aan gudubno sawirkan xiga ninkan taagan gurigan ama dhismahan hortiisa waxaa loo malay inuu kor taagan yahay baasha qashinka lagu rido ma kor taagno laakiin wuxuu taagan yahay si derbigaas agtiisu taagan yahay oo birta agteeda intana sawirka waxaa laga soo maray dhinacaas laga qaaday marka qofka waxaa loo maleeyaa inuu kor taagan yahay baasha qashinka lagu ridayo baasha qashinka weyntaas oo yariyaa loo maleeyaa sidaas ma aha laakiin si fiican ugu fiir marka fiiriyo sawirkan waa dareentaan umaleynaa qofkii wuxuu taagan yahay dhulka sawirka qofka wuxuu imaaday dhanka baasha qashinka lagu ridayo gadaasheeda meeshuuna ka sifray si fiican loo soco sawirka kale u gudubno sawirkan kale si fiican u fiiri wow la yaab wala qofkii hada fiiriyaa marka ugu horeysa aad fiirinayso waxaad leedahay
eegi maa dabka soo qunfac ma soo qunficin laakiin waa dab la shiday gadaashiisna ay jiifaan laba eeyaha meesha jiifa marka dabkii ayaa holcaya. dabkii markuu holcaya eegina afkii oo kala furtay dhulka oo saxday. afkii markuu kala furtay waxaa loo maleeyaa inuu soo qunfici eeyga inuu dabkan yahay sidaas maaha laakiin macnaha ku dugan hadda waa fahantiin aan maleynaa dabkan shidan iyo eeyga way kala fog yihiin. eeyga dhinacaas oo jiifaha dabkan intuu shidan yahay marka bahashaan dabka ay ka shidan tahay iyo eeyga way kala fog yihiin sidaas ula soco. aan ka gudubno sawirkan inaa fahantiin aan filaa. sawirkan kale wow la yaab qofkan 3 shakhsi ama 4 shakhsi waaye 4 shakhsiyood laba gabar yariis iyo aabahooda iyo maamadooda. marka hadii si fiican u fiirisid maamadana way fiirinaysaa labada ilmana way fiirinayaan aabahooda haayo si meesha ugu dhicin marka waa meel god ah waa fahmi kartaa oo taraarax ah. marka maamada waxaa is dhahaaba ninkan ma iskale salkan dambo ninka salkiis dambe hoos oo jiraa waa kahay dhagaxii meesha degaandiga qof oo zaaid u kala loobsaday camal waaye meesha uu fadhiyaa. marka qofka maamadana waxay u fiirinaysaa sida qof oo kala loobsaday laakiin zaaid aan u fadhiisanin. marka asigaa loo maleeyaa salkan dambe ee maamadooda waxaa loo maleeyaa ninkii inuu yahay nin hore ka weyn gadaalna u yar maxaa camal isdhaa. marka sawir la yaab leh walaa. aan ka gudubno sawirka kale aan gudubno. sawirkan kale waxaan balanboolamayaa mise waa mukulaal mise yaanyur. wow dubkii dambe adaa fahmay. dubkii dambe waa kaya miiska agtiisa miiska hoostiisa ku jiraa dubkaas dambe. kanne waa madaxii. marka sida madaxeeda waa kana madaxeeda waxay xoqonaysaa saan arki karo boodada sida xayawaanka gasho camal cayaan jirkeeda galay ay xoqonaysaa. marka madaxeeda saan u qalcisay waxaa loo maleeyaa inay balanboolo qoorteedna lahayn waxna lahayn oo meel yaal bombala loo maleeyaa marka si fiican u fiirsid laakiin waa yaanyur. aan ka gudubno sawirka kale inoo gudbiya. ninkana ujeediin oo company-gan wax sharxaya company ama dad ay wax sharxaya sidaan arki karana waa nin company jooga. marka sawirka dili fiiri ninkan waxaa la isku maleeyaa inuu isku kaadiyo nin qoslaya isku kaadinayna waa macquul ah filaa. aan si fiican u fiirino marka qoyaanka ka muuqda su'aalka ninka ma ahan qoyaan sax ah waa reflectionka kuraasta meesha taal ku dhacday oo dhalada oo mimbarka ay ku soo laabatay. sidaas awgeed colorka dhalada sameysay su'aalku wuxuu ka dhigaa hooska reflectionka hooska wuxuu ka dhigaa qofka inuu isku kaadiyo oo kale. marka inuu isku kaadin si fiican u fiiri sawirkaas ay gudubno. kan kale sawirkan xaafadan oo nal cirka kasoo shidmaya macquul ma wallahi waa fahmi lahayd anigan. asxaabta kan waa ku wareeraya haddii adinka aa fahanteen commentiga inuu soo qabtaba wallahi waa ku wareersanaya wallahi. ninkii fahmay commenti inuga caawiya insha allah. sawirka kale oo gudubno kan adinkaa idin daayay maadaama aan fahmi waayey inaa adinkan naga caabisaan. kan kale haddaan u gudbo wow cunugii yar qoortiisa intee ka baxday sawirkan ila fiiriye. cunugii yar malaha qoorba ma lahanba madax ma lahanba madaxii baa la yaa laba qofna waaye cunugii aabihiisa aabihii cunugii cunugiina madaxiisa looma jeedo. yaa haddaan qabtay madaxii gadaaloo jiraa aabihii madaxiisa la soo hormariyay cunugii oo qabtay madaxiisa gadaalaa laga wareejiyey si aan loo dareemay. marka qoorta markii sawirka si fiican loo dhabeeyaa laga dareemaa. inta kale ma fahmaysid qoortiisa qofka haddana waxaa qoorta sii qaranayaba koofiyadda oo wataa sii qaranayso. cunuga madaxiisa dhinac kale oo jiraa gadaal marka koofiyadday ku qaranayaan. sawirkan waa fahmay. aan ka gudbo midka kale. yaa naag lugaheeda dameer farow isku bedelay ahaay halaha kor dad halaha hoosna dameer farow ah. معقول ما كان والله خيانة كجرت والله هذا إذا فهم إيه في ري مركا قفك حسارين هاي أما قفك دمرك حساران تهاي دمير فروق
dameer farowga saaran tahay marka dameer farowgana wuu sii jeedaa agtiisana waa ujeedaa waxaa ku yaalo dhagaxaasi iyada marka lugaheeda oo saaran dameer farow madaxiisa horena ujeedaanbo afka hore waa madaxi dameerka gadaalna waa kanaa marka iyada jaakadiyaa lasii daayay ilaa iyo waxaa lagu sii daayay dabada dambe ee dameer farowga si aan loo dareemin marka jaakadii sii dhacday waxaa loo malayaaba inay iyada taagantaha lugaheedana sidaan isku bedeleen lugaheeda saxda ma ahan kan waa dameer ee iyada saaran tahay marka qofka sawiraya xaggoo joogaa qof kalena wuu kasoo dambeeyaa leeb baa walahi aan ka gudubna bal sawir cajiib saddex baabuura meeshan taalo mid kamidna wuxuu egyahay qofkii lahay soo egyahay talow waxaa fiirsaa baabuurka dhanka bidix jiro ee geeskaas jiro wuxuu egyahayba sida dhagaxyada ahraamaadka ee ka dhisan masar oo kale iyo asnaamta meelaha qaar ka dhisan qofkii lahay oo egyahay marka loo maleynaa waxaa waaye waxaa ku da-ay snow ama barafka baraf roobeedka barafka oo sida Yurub ama dhulka gaaladan oo ka da-a waqooyiga oo kale sida Ruushka oo kale dhulka waqooyiga sida inta badan waa qabow marka waxaa loo maleeyaa inay qofkii leeyahay oo egyahay gaariga sanki waa ka indhihi waa kana afkan waa kana si sax ma ahan laakiin waa gawaarida hore oo gawaarida qadiimka ahay oo ku da-ay baraf hariyay barafka akhriyay marka waxaa u maleysaa qofka in uu si sax oo asigu u egyahay laakiin barafku waa waxaan waa la gartay kan aan ka gudubno okay intaas oo eegta asxaabta sawiradan idin soo bandhignay insha Allah waxaan rajaynaynaa midkii aan fahm weynay midkaasoo ahaa cirkii nal ka soo baxay diikoorka cirka ka samaysmay waa wax macquul aan ahayn haddii si loo fiiriyo laakiin diikoorkaas waa fahm waayay insha Allah commentiga nagu soo caabiya haddii aad haysid jawaabteeda nagu soo caabi commentiga sidoo kale waxaan idinka rajaynaynaa insha Allah like comment iyo share inaad nagu caabisaan subscribe kan sidoo kale nagu caabi like-ta waa wax muhiim noo ah anaga like-ta markaas videogeena like saartid qofka kale like uu saaro like oo kan kalena saaro like-ta badan waxay ka yeeshaa videogaas in uu noqdo videoyaasha title-ka hore YouTube-ka qofka markuu YouTube soo galo videoyaasha ugu horeysa arkaa qofka Soomaaliga maanta inta badan dhulka joogtida ay ku saleysan tahay qofka reer Muqdisho ah waxa uu soo qabtaa badanaa video reer Muqdisho laga soo geliyay marka videogeena soo u noqdo videoyaasha ugu horeeya ee dadka daabanayaan nuga caawi like-ta oo ma sintiin meel walba joogtaan asxaabteena Soomaali Reality oo aniga oo Sami Shaak